الرحمن الرحيم ومركلي برنامج كيني فلسفة مرتدى نلاشة philosophy of life دمان أصحاب بيجكا يا دمان أصحاب فيسبوك يا يوتيوب كذا صور دوادا waxa aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan barnaamij qayb cusub oo kamid ah barnaamijkeena ama xalqad cusub waxa kale oo aan idinka cudur daaranaynaa inaan ka maqnayn barnaamijkeena muddo sababo gaar ah iyo duruufo khuseeya Soomaalida iyo gaar ahaan Somaliland tan 2000 iyo ciwaankan inuu u bixinay xalqadan ee 2017 waxyaabaha aynu uga faa'iideysan karno ee aan faci karo 2018 maxay noqon karaan لبيت توكل يتطبيق واحد صومري دبات فلل أما حوادث أما دعوين دباتله يدعوين فرحل دعوين كي ووينا صومالي دا صومري أنا جنا جارهان يقول قاعدين كفكرة أما حسوسية قيمها ولي هاي إن قفكو فكرة أنا إلاليايو عقابكو مدرسي وفكريسو waxa kamid ah qaraxii Soobe doorashooyinkii ka dhacay Somaliland Donald Trump iyo qaraaraduu gaaray iyo sidoo sanadkan cusub u socday iyo qaraxyada ismidaaminta iyo dabargoymaha iyo dhibaatooyinka ka socda bariga dhexe oo ina saameynaya naga saameyn weyn inagu leh وأنت كوادي ضدك الصوماليات وحيابي تابتي سنة كان مرجو إنها فل نحدين لناها فل كين يجي فكران ضدك صوماليدو ويدبوا النقدان ويدبوا إيجان وحي سوجر سي هالكن أي حيدنا ما دام هو فكر كوي من كون نقدين ضدك الصوماليدا يديو قدام با فكر لحظة دا سوكو كوبان أو آن سو إيجين دعوين سو سعودي أيار دلعي دعوة كما دنبايسا تاسي أو نقطي دعوة دباتة دودي يعني ما أنت وعن أدوار كايا أنت بدني عيدونيان إن أشيغان ضدك كلام مسلمين تا يعني أدبال دقين لبكون يستيدي طبعا سكة بدن سيدي هوري لو شيء جرى ضدك إن أنا أدبال دقين لبكون يستطبيع طبعا محيط هاي ظروف تا لنا إسا إن ضدكو أي أركان لبكون يستطبيع طبعا يستطبيع طبعا إن أنا سوودن رجع السب أي كاجا مقاطع إن ضدكو نيجا حان أي كن يدحين سي إيجيستا سندا عصبية وحسوس هذا ما دام هو كبر حين سوشيال ميديا تذكر استعمالها أي نقدين وحيابه مرجو لا أو أن مرنا بدينين فرحات مرنا بقفك أن كوكينين إنه أركو شيء نيدي سجليه يديله عصبية عرقتية عصبية فكرة عصب سأوجدت كوي كداليان مركز تعرقتدا عياركيان مرجدا قرح دعت وكذا إسخلافك إسأدين تغييرات وحصلك وحياة راد كل فكرك قفك كواسو كدقة يضعيف هذا التكوين إنه يقدر قرحي صوبه حكينا قرحي صوبه إن ونقض قرح ومدى الصوماليات شن بقول قفلك الله مقدشو انت عندك ينك بدنا قاوع معان هسه عادي تشرين معلوماتي اما انفورميشن كي دبتها ايش شيغي يدي كدم بيسي دبتها اللي هو ايدين لها المحكمة العالمية لو قبل لها لوادي لها الدولة اي شيغي لها معلومات عسى قف بدل الشبكة كدم بيسي متكررين فرماشة كدم متكررين إمارات كدم متكررين أوريدي وضعنا يعني ها لكن أورانشيا محا كدم بيا وح كدم بيا مجران واي وحال الدنيا إن أضلعاتو واربحين الآن أتكون عضو إنفورميشن الآن يكون عضو أمطني تكله وحوي إنفورميشن الآن مركاني تشرين on mukhabaraad isdoon iyo dawlad iskaashanaysa oo ku sheegaysa dhacdada u dhacday iyo waaqici wixii ka dambeeyay waxa ka dambeynaysa memory loss in ilowdo
inaad ilowdaana waxay faa'iido u tahay dhammaan dambiilayaasha adduunka oo dhan dambiile kastaaba shayga uu keliya ee uu ka jecelaya dembigiisa uu galay inuu sameeyana waxa weeyaan in aad adigu ilowda dembigaas waana shayga ay ku guulaysatay dowladihii Soomaaliya soo dhaafay tii Cabdullaahi Yuusuf intay geysatay iyo tii ka dambeysay intay geysatayba iyo tii Siyaad Barre intay geysatayba in la ilaabo in aad maanta ku mashquulshaan sanadkaas in aad berrina ku mashquulshaan dhamaadka sanadka kale berrina ka dambaysa inaad ku maqashaan fanaanad hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel kale taasi waxay eeganaa fikirkaasi information like wirelesska ka dadaala oo ha u dhiibina maskaxdiina inaad ilowdaan waxyaabo maalin uunada ku baagay murugo ama maalin idinka ooyay laakiin isku day inaad ka fakartaan nadaba gashaan in wax ka qortaan in aad u dadaashaan inaad fahantaan arrinka kale farxadda lahaa wuxuu ahaa doorashooyinkii ka dhacay Somaliland dad badan waxay isweydiinayaan ها سومالان doorashay qabsatay laakiin doorasho noociyay bay ahayd kama dambaystii waxa la doontaan waxay ahayd xoriyo cadaalad ha laakiin dad badan waxa arkaa inay difaan ku dhacaan inay niyad ahaan ugu dhaceen shay ignorance shay min al garanshawaya sida ay wax u socdaan maxaa keenay qofka aqoon-yahankii u garan waayo qaabka dhabta ee wax u socdaan ee kama dambaystana sequenceska dhacdooyinka taxana ay halka gaarsiinayaan ee Soomaaliya soo gaarsiiyay doorasho iminkana gaarsiinayeen madaxweyne cusub iyo madaxweyne kale ayeelto dad badan waxay kala qaadayaan nidaamka iyo mucaaradka yani government iyo regime xukuumad iyo dawlad way kala duwan yihiin dawladdu waa shay koobsanaya dhammaantood يعني برلمانكا معارضكا ودادada inta mushaharka qaadata inta u shaqeysa dawladda oo dhan booliiska militariga dhamaan mucaaridka ahsaab hay'adaha dawladda ururada xuquuqda waxa soo waxyaabaha ay koobsanayso dawladdu adiga shakhsi ahaan dawladda casriga waa dawlad niqda shakhsiyaadka wiyada qofka ay baabisaa shakhsinimada qofka ay baabiinaysaa dawladda casriga ah maxaan uga jeednaa ani waxyaaba dad badan waxay isweydiinayaan maxaa isku daray qabiilkii siyaasadda waxba iskuma darin laakiin waxa isku daray systemka laftiisa yani basic identity-ga huwiyadan anigu leeyahay ama huwiyadan muwaadin ku ahay waa huwiyad qabiilaysan aniga naftaydu maalintan muwaadin qaadanayay waxay inta badnaa waxa weeyaan in la weydiiyay qoladaan ahay iyo cidda iga mas'uula inaan qolada ahay ee runka sheegaysa inaan qolada ahay ID card-kaygana wuxuu dawladda ugu safe garaysay qolada ahay yani ID-ga ama huwiyadaad sidato ayaa sheegaysa inaad muwaadin ku tahay inaad qabiilkan tahay maadaama aad muwaadin ku tahay inaad qabiilkan tahayna waa inaad qabiilkan wax ku doorato maadaama oo tahay inaad qabiilka wax ku dooratana waa inaad qabiilkan manfaco ka raadsato maadaama oo tahay inaad qabiilka manfacad ka raadsatana dawladdu waa inay qabiilada manfacadooda ka shaqayso maadaama ay tahay dawladdu inay qabiilada manfacadooda ka shaqaysana systemka oo dhami waa inuu shaqeeyo qabiilka ma jiro shay aan u shaqaynaynin systemka dawladaheenan ama dawladeenan aan ka hadlayno aan u shaqaynaynin qabiilka laakiin madaxweyne kasta oo sida ka bood nidaamkaasina waa inuu ka soo boodo muwaadinimada asalkeeda marka waxaan ku tixgelinaa dhalinyarada in iyagu marka hore dawladdu waxay u aqoonsantay inay yihiin reer hebelo isu tagay oo dawladdu ay dhikaadisay oo doortay hebel oo iyaga ka mid ah sidaa awgeed dawladdu waa system taagan oo qofka bini'aadamka ku dhex lumin kara huwiyadaasi ama ID-ga uu leeyahay dabadeedna dhex gelinaya mataaho meel bilaa dhammaada kaasi oo hadduu mucaaradka tagana ay u arkayso dawladda nooc hadduu tagana muxaafidkana dawladda nooc dawladda systemka oo dhamina waxyaabaha uu ku mashquulsan yahay waad arkaysaanoo waa ama timaha inuu jaro ama waa inuu wado affordability nolosha ma aha inuu ku siiyo inuu provide gareeyo maaha nolosha waxay ku dadaalayaan inay ilaaliyaan systemka nolosha u soconayso
يعني ويسكو دايا مدحوينه كستو يمادا إنه إلاليو إن أي سي سعودة دولة مدحوينه هو شقية دولة dad badan maanta waxaa arkaya iska dhaadhicinaya madaxweynuhu inuu shaqeeyo shacabkuna inuu shaqeeyaan dowladda waa isla halkii adiga laftaada wuxuu doonayaa inaad jaamacad ka baxdo dowladda u shaqeyso ama product soo saarto dowladda u shaqeyso yacni kontonka sano jirnaba waa systemkaasa isku xidhan oo ah dowladda adiga haddaba ka shaqsi ahaan maxaa waajib kugu ah dowladdaasi aad la shaqeynayso waajibka kaa saaran waxa weeyaan inaad u aragto halka laga xiraya laga mamnuucayna waxa weeyaan aragtida inaad aragto in dawladda oo dhami ay tahay system kaliya mucaarid muxaafid gabigooda oo dhami inay isku yihiin dawladana aanad garanaynin cidda xaqiiqda ka mas'uulka cidda xaqiiqda ka mas'uulka waxa weeyaan ama xaqiiqada kaliya la ilaalinayo waxa weeyaan in la ilaaliyo system kan oo aan la bedelin دستور كان نظام كان قبيلة فكر كان أركتها هوس إيجيسا إلا إلالي الله حفظه أيو حفظه يا مدحوين أصلا صعدا أيو حفظه يا نيك معارض كوايسنا معارض ما نقول يا دانو حفظين نظام كا إسنا مدحوين ما نقول يا دانو حفظين نظام كا عادي كان نظام كا دن مكوية إن أصيش قيو نظام كا إسكوحلان إيه قبيلة دولة يا دولة أو شقين إسا قبيلة دولة أو شقين إسا ما يويان adiga waxa dalku waxay inuu ugu aqoonsado muwaadin jinsiyada doonaha aado fikirku doonaha amisno tiimuhu doonaha u xirnaado meeshuu doonaha ka yimaadee in lagu arko adiga inaad tahay shakhsi leh identitygiisa ama hawiyadiisu ay ka imanayso fikirkiisa maaha qoladiisa maaha in aniga ii shaqeeyo waa in uu an naftiisa wuxuu soo saaro dabadeedna ay dawladdu ka faa'iidaysato waana inuu qofku helo xorriyaddaasi inuu isagu naftiisa u faa'iideeyo kana faa'iidaysto waxyaabaha ay dawladdu soo saarayso saddexaad sanadkan iyadu dhacdayna waxay ahayd Donald Trump qudus u siiyey Israa'iil ama caasimadda Israa'iil ku magacaabay ama buu safaaraddii u raray qudus intaa doontaba dheh intuba waa isku mid laakiin dad badani waxay eegayaan Donald Trump wuxuu u siiyey qudus Israa'iil dad waxay leeyihiin Israa'iiliin baa soo doortay oo injiiliyiin baa rag diinta ku adag oo masiixiyiin oo doonayeen qudus yahuudi yeelata ayaa soo doortay saasuu isu dhaafiyey oo mushkilada ka haysta Mareykanka gudihiisa darteed ayay waafaqeen sax bay noqon kartaa waxa kala sax noqon karaa in waxaas kaloo sax noqon karta Israa'iil caalamku in uu arkay weliba Mareykanka iyo Ingiriiska iyo iyada nafteediisu aragtay in aanay jirin reason ama sababtii ama xujadii ay carabtu markasta Israa'iil ku eedan jirtay ahayd in ay tahay dawlad argagixisa carab burtalaysa dhulkii qabsatay maadaama oo Suuriya wixii ka dhacayna aragnay Bashar al-Assad iyo Ruushku waxay ka geysteen kumanaan caruura kumanaan dhiiga la daadiyay si kasta looga gooyay laakiin muslimiintaan waxba u dhaqaaqin aan aragnay Ciraaq marka waxay leedahay waxay iga daran Bashar al-Assad waxay iga sii daran ISIS Daesh oo as-sunniyiin laakiin sameeyay wax aanu sameeynin anagu in badan waxa kale oo iga sii daran Sacuudiga oo isna Yaman si aanu anagu cidna wax xasuuqay waxa ka sii daran Turkiga oo isna PKR-da markasta xasuuqaya oo una diidan Kurdistaankooda waxa naga sii daran Liibiya oo adoonsanaysa oo maalin kasta ugu jidinayo oo badal ugu qarqoominayo muhaajiriin dadkaas oo dhan way naga sii daran yihiin way naga sii xun yihiin marka anagu maxaan xunahay maadaama la wada xun yahay gobolkan anaguna ma wanaagsanan karno saawgeed maadaama Sacuudiga Turkiga Suuriya iyo Masar oo siisi u laayay boqolaal qof maalinkeedii Qaahira magaalada caasimadda bartankeedii cidi aan la hadal marka wax meesha ka baxday iyaduna xujadii ahayd Israa'iil waa dawlad xun oo waxsha oo
aan la aqbali karin maadaama kuwii kalaba noqdaan iyaguna waxaan la aqbali karin akhlaaqiyan ama ruud ahaan ruudka akhlaaqda marka la eego saa awgeed Israa'iil in badan waxay haysatay xujo ay ku sii wada carabka islaamka taasina waa tafkiirka keenaya waxaan doonaa fakarno si tasarruf maxaa waxaan u dhaceen saa awgeed sanadka cusub eeg 2016 iyo 2015 iyo 2017 dabeedna eeg maxaad filanaysaa 2018 dabeedna markaa naftaada geli farxad iyo nashwo iyo fikir cusub si aad eegto eegna mustaqbalka aad buu ka fognay dadka kale wadamada qaar dad baan tarxiilaynaa hadlay halkan kama ay tamay waxaan tarxiilaynaa wadan kale oo ay tahay inay yihiin dad iyagu nool casri maadaama casrimka waa la tarxiilayaa waa loo tarxiilayaa wadan kale oo Yuruba si uu u soo hadlo waliba u fiidiyoodiisu soo duubo oo hadlo maadaama aynagu nahay waxaan aqoonsanaynaa inaynagu nahay dalliita aan xorriyadda aqbalaynin aan aqbali karin dawaasir laakiin waxaan aqoonsanaynaa caalamka kale aqbali karo caalamka kale uu ka hadli karo caalamka kale uu ka soo jeedin karo fikraddu doono marra waafaqsanaan ra'yigiisa laakiin ra'yiga aan waafaqsanayn ra'yiga aan kasto ka soo horjeedo tuurista aad ku tuurayso meel kale waxay tahay aqoonsi ah inaad aqoonsatay in dadka khilaafsantay ku noolaan karaan meel kale sababteed ugu muhiimsan qof kasta oo arki kar naftiisa inuu arkaa dadka agtiisa inuu arkaa waxa weeyaan dadka iga duwan min jacayl soo naabahay min doonaya inay noolaadaan mise waxaan doonaya inay dhamaadaan dadka caawada baaldegaya ma doonaysaa inay wada jiraan mise waxaa doonaysaa inay wada dhamaadaan saas ayaad mahadsantihiin waana mar kale iyo barnaamijkeena murtida waan دوبنا إن شاء الله حلقات دنبا أصلا صعدة إنك قاعد دونا فلسفة أساعد حلقات دي روحينو كقتلا قلنا إنه من استناء جوانبها فكرك وحيوي دعي سنة كلا كونيو تطبيق طبعا أد بعد ما سنتين والسلام عليكم thanks to watch